halkuu ka baqaya dadka qaar waxay ka baqayaan dumarka in lagu fitneeyo 60 jir baad arkaysaa dumarka daba socda oo ku fitnaysan nin yaroo dhallinyaraana waxaa laga yaabaa ilaahay fitnada inuu ka badbaadiyo marka meelaha fitnadu ka imanaysana qofku inuu naftiisa la xisaabtamo oo uu ogaado oo albaabkeeda uu iska awdo haddii shaqada lagaa soo gelayo shaqada iskaga tag aabbo markuu dhallinyarada ahaa 12 jir buu ahaa isagoo miyiga ka soo galay oo xilliga hadda waayeelun baa tukanaya dadka badidiisuma tukanay waa 60kii meelahaas ayaa isagoo Hargeysa jooga ayaa wuxuu shaqaale u ahaa oday nijaara Hargeysa odaygaasi ma tukado sida dadku u badnaayeen wuxuu yiri waan tashado waxaan idhi shaqaduna waa yaray war ma shaqada yar buu salaada kuugu diidaya horta ha joojin salaada ha joojin shaqada hadduu kaa eriyana uga tag dabadeedna shaqadii buu uga tegi shaqadii ayuu uga tegi bannaanku ka dhig waa salaada ma joojinaysaa mise waa shaqada waa kaa saara ma joojinaya buu idhaaf buu shaqadii waa uga tegi aabba wuxuu yidhi 20 sano ka bacdi anigoo shiikha oo madiina ka soo baxay ayaa ninkii xitaa nijaaradii ka kacday oo xaaladiisu wagash tahay oo adduun iyo aakhiraba wax wanaagsan aan ahay ayaa igu soo baxay doona aad baan uga naxay buu xaalkiis aad baan uga naxay marka khataru waa badan yihiin waalidiintu aad iyo aad ha u digtoonaadaan dhalinyaradu digtoonida ha qaataan ilaahayna ha la weydiiso dinta inugu sugo wallahu aclam wasala allahu wasalam على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم